Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan subscribe garay channelkan haddii aad ku cusub tahay si aad u hesho xog kasta oo aan halkan kusoo gudbinayno. Dadka Soomaalida oo dad Muslim diinta Islaamkuna ka xarimayso in xadgudub loo geysto xuquuqda qofka Muslimka ayaa waxaa dhaca in dil dhac kufsi gabdhaha loo geysta ay sameeyaan. Kufsiga gabdhaha Soomaalida loo geysta ayaa mid ku soo badanaya geyga Soomaalidu ay degto. Inkastoo ay jiraan falal kala duwan ee lid ku haweenka Soomaaliyeed, kufsiga ayaa midka ugu weyn ay wajahayaan dumarka Soomaaliyeed. Sanado badan oo la soo dhaafay waxaa jiray kufsiga in goobta uu ka dhaco uusan warkiisu dhaafin. Hase ahaatee Soomaalida maanta ayaa waxa ay u muuqataa in cod dheer ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan kufsiga gabdhaha loo geysto. Baraha bulshada ayaa meelaha ugu badan ee dadku ay ku cambaareynayaan falalka kufsiga iyo wixii la halmaala. Saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday gabar yar oo 12 sano jir oo lagu kufsaday magaalada Gaalkacyo, arrintaasi oo sababtay inay u dhimato kufsiga loo geystay. Gabadhan oo lagu magacaabo Caasha ayaa si qaab daran loola dhaqmay oo xubnaheeda qaybo kamid la jarjaray, awood badan loo isticmaalay si loo ogoleysiiyo kufsiga. Arrintaasina waxa ay keentay inay geeriyooto. Haweenka magaalada Gaalkacyo ayaa arrintaani si weyn uga soo horjeestay, waxa ayna dalbanayaan in cadaalad la horkeeno qofkii asagu markaasi falkaasi ku kacay. Falalka kufsiga ee ka dhacaya gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa kuwa isa soo taraya. Dhawaan ayay ahayd markii gabar lagu kufsaday magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Arrintan ayaa sidoo kale waxa ay sababtay in banaanbaxyo waaweyn ay ka dhacaan magaalada Dhuusamareeb iyo Guriceel oo arrintaani looga soo horjeedo. Gabdho badan oo kufsiga loo geystay ayaa kuwa markaas iyagu cadaalada sugaya. Arrintan ayaa markii ay dhacdo waxa gacanta ku qabta odayaal dhaqameed oo u garnaqa labada dhinac, waxa ayna wax ku xaliyaan xal mastuur iyo xeer Soomaali. Dad badan oo Soomaali ayaa aaminsan in odayaashu ay qayb ka yihiin soo noqnoqoshada kufsiga gabdhaha loo geysto, maadaama ay iyagu isku horgudbaan qofka falkan geystay oo ay ka codsadaan qoyska gabadha inay la xaalaan qoyska kale. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ka dhacday Gaalkacyo ayaa u muuqata